بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج قارة وكميدا برنامج شدي أنا قهد لجرني أرمها قرقاتي وعاوة يعني أحمد علي هدي برنامج كوحي قال قيب غادنا يا كافسة أي بكر يو حليمة جامع سيدو كلا نظيف قرنات وتقانان waxaan ka xumahay inaan caawa aan gudoomiyihii golaha midnimada gurgaate aanu maaragtay nagala soo qayb geli karin barnaamijka maadaama uu xalay ku saamuleylay shirkii magaalada ka dhacay Stockholm waddankaas Sweden oo uga hadlayay ama uu shirka uga qayb galayay sida uu u gudbiyo aragtida iyo araada iyo fikirka midnimada gurgaate soo dhawaada dhamaantiin waa dhownahay waayahay xalimo waxaad ka mid tahay dadkii ka qayb galay xalay xafladii Stockholm ka dhacday ee dalkaasi Sweden oo lagu soo hadal qaaday arrimaha gurgaate oo ka hadlay gudoomiyaha midnimada gurgaate bal soo dhawaaw warbixin naga sidii wax u dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaama dhammaantiin marka hore waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa walaalaha reer gurgaarte oo halkan naga fiirsan doona iyo Soomaalida inta samaha jecel dhamaantood haddaan warbixin yar idinka siiyo shirkaas xalay wuxuu ka dhacay magaalada Stockholm waxaa xusid mudnayd in gudoomiyaha midnimada gurgaarte uu ka soo raacay safar dheer ku yimid maaragtay tareen ah ku yimid halkaas oo qaadanayay habeen iyo maalin barkeed halkaasna runtii looga soo dhaweeyay si aad iyo aad ah kadib markii shirkaasna uu ahaa shir ku saabsan mid lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha habargidirta mudane shirwac markaasna markii aan halkaas ku soo dhaweynay gudoomiyaha midnimada gurgaartana runtii wuxuu aad uga hadlay howshii aan soo qabanay iyo maaragtay hadda halkay marayso kadibna si fiican oo farxad leh oo dhiirigelin leh ayay dadkii oo dhan u qaateen waa lagu farxay waa loo mashxaraday waana la soo dhaweeyay arrintaas aad iyo aad nadiifo in arrintan lagaga hadlo shirarka noocan oo kala ah oo ay qayb ka noqdaan sidii ay uga qayb noqdeen shirkii London iyo soo dhaweyntii gudoomiyaha Shirwac sideed u aragtaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا السلام يا دمان ومدى الصوماليات دل إيا الدبد ميلو البيت جوغان قارهان ولا لها إن قرقرتها ويا ميلو البيت جوغان دافعها على دا دونك وحنا كلون السلام يا إن مدحينا إن ورباهنتا تيفيقا قرقرتي إن مدني أحمد علي هودي ونعادو السلام يو مرو البوتاقن مدن مدى إيو bulshaweynta Soomaaliyeed gaar ahaan TV-gan oo TV-ga midnimada gargaarta ah oo mar walba uu noo daadeeyo oo aad iyo aad u salaamayo iyo walaashay halgamaa weyn kaafiso walaalaha mudulood aad baan u salaamayaa iyo waliba walaashay marna ah gudoomiyaha haweenka qaranka ee dalka Sweden walaashay Xaliimo Jaamac marna ah gudoomiyaha gabdhaha dowlad goboleedka Galmudug State ee Sweden aad baan u salaamayaa Xaliimo Jaamac maanta marka ugu horeysa inkastay ka baxsan tahay barnaamijka maanta waa maalinta loo asteeyay haweenka adduunka anigu maadaama aan ahay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK waxaa si gaar ah aan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa haweenka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay joogaan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay ha nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo cimri dheer iyo dalkeeno nabad ah dhammaan haweenka Soomaaliyeed guul iyo gobonimo ayaan leeyahay si gaar ah gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Axmed Gaballe oo aan leeyahay hambalyo gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo waliba First Lady marwada koowaad ee dalka Marwo Seyna Macalin oo salaamayo gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir walaashay Jawaahir Baarqab iyo dhammaan gabdhaha xildhibaanada ah gabdhaha baarlamaanka iyo waliba wasiirada khijo maxamed diiriye oo leeyahay wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga gabarna matasha gabar afkayna ku hadasha guul iyo gobonimo ayaan leeyahay haddii aan taa ka gudbo dhammaan haweenweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oon aan u gudbo arrintii xalay ka dhacday shirweynihii beelweynta gudoomiyaha beelweynta habar gidir iyo adeerkood
mudane shirwac loogu soo dhaweeyey dalka Sweden aad iyo aad ayaan u soo dhaweynay ugu faraxnay oo weliba uu ka qayb galay gudoomiyaha midnimada gargaarta hawiye gudoomiye cabdiqaadir cali yarow iyo weliba xubinteena weynta ah xaliimo jaamac ayadana ka qayb gashay iyo dhammaan walaalihii kale ee ka qayb galay xafladda guud ahaan Soomaali weyn aad iyo aad ayaan u salaamayaa xalo waxay noo ahayd farxad waxay noo ahayd reyn maadaama shirku uu ahaa shir nabadeed shir uu ahaa gobol xaar ummadda Soomaaliyeed loo soo gogol-dhigayay nabadda iyo isdhexgalka waxaana ku faraxsanahay in arrimihii gargaarta uu ka hadlay gudoomiye cabdiqaadir aan aad iyo aad ugu faraxnay annagoo ku hadlayna isku duubnidii iyo midnimadii iyo xaalmarintii walaalkeen maxamed gargaarte dhibaan loo yaqaano anoo weliba ku hadlaya magaca weyn ee curadka hawiye ee karanla hawiye murusade mar walbana u taagan in aan garab istaagno xaalmarinta walaalkeen maxamed gargaarte annagoo isku duuban waxay aheeday xaflad aad u qurux badan sida looga hadlay ama gudoomiyaheenna u hadlana aad iyo aad ayaan u taageeray waxaana leeyahay gudoomiye saas u wad hawsha iyo dhammaan guddiga gargaarta hawiye ee daafaha dacalada adduunka jooga aad iyo aad ayaan ayaguna u salaamayaa sababtoo ah waa dad u istaagay sidii midnimadan looga miro dhalin lahaa sida xaalmarintan looga miro dhalin lahaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in mar walbaba maalinta kasii dambaysa oo barnaamijkii TV-ga gargaartay oo sii ballaaranayo sii baahayo dal iyo dibadda laga wada daawanayo waxaana mahaddaas iska leh axmed cali hudey oo TV-ga u diyaariyey gargaarta hawiye midnimadiisa iyo xaalmarinta walaalkeen maxamed gargaarte ee ma dhibaan waa ku soo celiyey aala u mahadsantaa waa ku dheeraaday mahadsan tahay haddana waxaan siinayaa kaafiso aybakar kaafiso soo dhawow adigaba sida aad u aragto xaaladdu siday u socoto hadday tahay shirkii xalay oo lagaga hadlay arrimaha gorgaate si qaasa sababtoo annagu waxaan wakiil ka nahay gorgaataan wakiil ka nahay meel kastoo looga hadlo waa inaan soo bandhignaa iyo sida looga hadlo sidoo kale waxaa looga hadlay shirkii london wawshu waa socotaa waxaa jira iyagana shirar soo socda oo meelo kala duwan oo hadday dalka tahay haddii dibadda lagu qabanayo iyo kuwa la soo qabtay faahfaahin caleemasaar iyo howlo kale waa idiin soo socdaan soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي قدوميها قرقاتها ويانا وأمات علينا يا وشركة حلقة قيب قلي أمدي الصومالية دمشي جوكتي قدوميها محل إشيك شروع أحمد ودان هرو قالوا ما شاء الله هرت حالي حفلة سفي عنا ودعذرون أهانتي سفي عنا لوسو أقاسمي شعب كصومالي سويدن الشعب وحاجروا أو محل ودمض يقولوا دو كيميت run ahaantii markuu gudoomiyaheen cabdiqaadir cali yaroo khudbeynayay ani waa daawanayay horta run ahaantii si fiican uu u hadlay maasha allah mas-uuliyad fiican uu muujiyey shacabkii meesha joogay maadaama uu gudoomiye shirwac uu la socday xaaladayna oo xaggaba uu ogaa laakiin si fiican maasha allah oo barnaamijka ugu hirgalay meesha maadaama gudoomiye xaliimana ay joogtay horta run ahaantii كان بليف سيقول عذي محلها سويدن برامج كحل سوق دعي هذا أنجح ليسترون أهانتي برامج عاد كسي مرة هو ذا جلايوها بدومية هنا وأقوم هتعلينينا كالنت مقلو كقعدت سفر رؤوسه قال جد رؤوسه مرة هذا مهندسين عبد القادر حليرو أحمد ساقنا هاي وقت مقالة لندن برامج على وقتي run ahaantii barnaamijkaas adigaa hogaaminayay juhdiyaa gelisay maskaxaa la geliyey guddiyaal badan oo adiga u xil saartay ee nadiifo qaran ku jirto ee gabdho kale ku jiraan oo hadda aan soo magacaabaynin oo aan inta kusoo koobi karin iyo rag kula qabteen ilaas stiil barnaamijka aad u dheelitirnaa caalamkao dhanaa laga helay run ahaantii waa naloo soo hambaleeyey ummadda Soomaaliyeed أحمد ولقوا دعية رؤانتي سفيعنا برنامج أو قبل قابل سفيعنا وحي لو كلا هبيي أذيك يتيم كل شقينا وأنا قاعد كميدها نظيفة كميدها قبل كلا كجرويل كلا كجرين رؤانتي سفيعنا وبس الله وتوه الأمة بهنا برنامج كجرقات هوية رؤانتي دت قلبي في عنا أوكعي دت وحا أوكعي محل إيش جنيد ودو فرنت هاي دت جعل ولا تنمذ كوين تهاي أو استاجي دت كله استاجنا دت أيجنا جعل ولا لهنا نقعد السنواية وأنا حال مرينتو عن قصة عنه أحمد وكل هذا برامج كوديريا وكوسو علينا يا إن شاء الله أدي هذا ما سنتهي وحنا ربع إن سيو حليمو وحاجرة كل واحد بدنا نوصل قبصومي وحنا واصل صعدان
halkan aan hadda marayno maxaa xiga barnaamijyada soo socda ee aad adiga og tahay maxaa kamid ah soo dhow runtii walaalkay waa mahadsantahay axmed huday wax badan oo wanaagsan waan soo marnay oo intii xaflado lasoo dhaafay waad ogtihiin inay Sweden Mareykan London burco boorame intaas marxaladood aan soo marnay iyo oo hadeerna maaragtay 20 bisha aan u malaynayna inay Canada sidaas oo kale ka dhici doonto xafladaas mid ugu dhow oo aan sugaynana waxay ahayd xafladda Garowe laakiin xafladda Garowe weli ma cadda 10kan sugaynay haddana 20ka inay u dhacdaa laga yaabaa hadday noqon weydana gaalkacyo inay tahay ayaa loo maleeyaa marka intaasaan ka ogahay waxa soo socda waayahay nadiifo soo dhawaaw maxaad ku soo kordhinaysaa intaas adiguna soo aado waxaan kaloo ku soo kordhinayaa waa run sidii walaalahay ay sheegeen waxaan ku soo kordhinayaa in 21 bishaana London ay ka dhacayso ama UK caleemasaarkii gudoomiyaha gabdhaha hawiye walaasheen bilaad aadan guufe bilaad oo gabdhihii hawiye ay markaas u doorteen habeenkii midnimada gargaarka hawiye London lagu qabtay UK 8 bishii February markaas in loo caleemasaarkeedii loo qabtay 21 bishan hadii ay banafta lagu simo oo ay ka dhici doonto xafladda bilaadna Milan meeshii aan hore loogu qabtay midnimada gargaarka hawiye ee ahayd Milan South London marka waxaan leenahay dhammaan walaalaha inay ka soo wada qayb galaan irduhu waa furan yihiin ka soo qayb gal wacan in aan gabadhaas walaasheena ee aan u dooranay isku dhexgelida iyo macnii isu keenida gabdhihii walaalaha ahaa sida ay idin laftirkeeda uga shaqayn lahayd gabdhihii beelweynta hawiye isu keenidoodii kadibna gogol loogu dhigi lahay gabdhihii kale ee daarood ama gabdhihii direed ama gabdhihii raxan weyn gabdhihii Soomaaliyeed oo isku wada duuban marka waxaan leenahay bilaad xilka lagu doortay waa xil culus ilaahayna kula garab galo annagana waa ku garab taaganahay sida aan tii weynad looga shaqeeyay ayaa tan looga shaqeey doonaa annaga waxaa mar walba hormuud noo ah UK markaan nahay Axmed Cali Huday sida ay kaafisa ka dhawaajisay waqti badan iyo jawi badan iyo si kastaba ha ahaatee ninku uu istaagay sida annaga dhan aan u wada shaqeyn lahayn annaga dhan gacmaha isu wada qabsan lahayn wuxuu ahaa Axmed Cali Huday reer UK markaan nahay asagana mahad ka gaarto familkiisa gadaale ee hawsha la waday aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa ee ugu horeyso marwadiisa iyo caruurtiisaba oo mar walbaba garab la istaagayay sida hawsha gargaartay ay ugu hergelin lahayd UK iyo dhammaan adduunkaba waxaan kale oo aan leeyahay mar walbaba Professor Shirwac gudoomiyaha beelweynta habargedir waxaan leenahay mar walbaba u taagan sida uu nabadeynta uga shaqeyn lahaa in walaalaheenaas maxamed gargaarte oo maanta ee reer gargaarte ay u istaageen sidii walaalahaas ay u xaal marin lahaayeen maantana walaalihii gargaarte ee ka soo gudubtay ay taagan tahay gogashii in beelweynta hawiye ay dhigaan Muqdisho oo loo dhigo ummadda Soomaaliyeed si xaal marin guud loo siiyo walaalaheeni maxamed gargaarte ee ma dhibaan waxaan leenahay in anagu ka qayb galno qurba joogteeni soo daadahaysa barnaamijkaas hil iyo hoo ugu istaagay in intaynina aan ku wada kulmi doono bisha 7 sidii loo qorsheynayo in aan ka degan doono aadan cabde airport oo ay farxad noo tahay wafdigii ka imaanaya 5 qaaradood ee u imaanaya gubasha quruxda badneed ee beelweynta hawiye ay dhigayso Muqdisho aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hadii Ilaahay cimri dheer nagu wada gaarsiiyo oo noolnahay in anagoo garbaha isaysana walaalaheen u wada hoyanayna in aan Muqdisho ku wada kulano insha Allah aad kulli waxaan filayaa in diyaar garow badan iyo hawlo badan ay jiraan sidii barnaamijkaas iyo shirkaas ugu badeli lahaa waxaan rabaa marka inaan idin weydiiyo xafladdu way dhammaan doontaa way dhici doontaa xafladuna way soo gabagabowi doonaan dad badani waxay qabaan in hadda loo howlgalo sidii dib u dhis iyo dib u habeyn iyo maalgelin xagga waxbarashada xagga diinta wax walba sidii in foundation loo sameeyo oo hawshaas laga howlgalo ma jirtaa qorshe noocaas ah oo gabdhuhu ay ku fakarayaan inay qayb ka qaataan soo dhawow kaafiso
waa mahadsantahay Axmed Cali Huday walaalkay aadan ku mahadcelinaya horta wax fiican ka dhawaajisay waxaa loo baahan yahay Gorgata Foundation loo baahan yahay hadda ka horna waa taana tiri oo markaan joogna maxaa lahaa soo dhaweynta shirwac oo London Gorgata Foundation loo baahan yahay sida dadka wax loogu qabto ee walaalaheena ah ama hawiyaha noqdo macnaha dallad lagu mideysan ilaa magaca inuu noqdo magaca Gorgata Foundation Axmedow adiga aad ka dhawaajisa hadda koor waa kugu raacnay nadiifata waa ka hadalnay gabdhaha kalena inaa gaarsiinaa rabnay oo barnaamij weyn oo aan ka dhigno maxaa lahaa Gorgata Foundation sidii aad hadda sheegtay iskuulaad maxaa lahaa caafimaad sheeg dadku waxyaabo badan ay u baahan yihiin biyaa loo baahan yahay barkaday u baahan yihiin macnaha rabadaankii oo kale waxay u baahan yihiin in la taakulay la caawiyo meelo miyiga ahaa jiro oo magaalooyinka ka fog magaalooyinaa jiro oo dadka aan haysin waxyaabaha qaarkooda marka waa loo baahan yahay Gorgata Foundation loo baahan yahay in la sameeyo oo annaga gabdhaha iyo raggaba inaan hormuud ka wada noqono oo ka wada qayb qaadano oo madaxii ugu horeeya adiga aad noqotid magaalada London aad degan tahay qof aad u firfircoon barnaamijkaas ku fiican ayaa taa adaana keenay marka hore magaciisa waana kugu raacsanahay Gorgata Foundation wax badan oo ka bedelayaa sababtoo dib u dejin uu sameeynayaa hadii barnaamijka soo gabagaboobo hadda ka dhawaajisay xafladihii dhamaadaan caalamka oo dhan laga dhigay ummadii Soomaaliyeed annaga shalay aan walaalaheena gudka u geysanay nala ogaadaan in walaalaheena annaga aan raali gareeyna xaq iyo xuquuqda ay u leeyihiin ayaga ay u leeyihiin aan siinay macnaha aan u hoyanay oo aan cafis weydiisanay kadib maxaa soo xigi kara marka waxaa soo xigi karo in la sameeyo dib u dejin la sameeyo in Gorgata Foundation uu quwad yeeshto oo noqdo foundation adag oo ummadaas labada dhinacba u sameyn kara dib u dejin hadday noqoto gobolada dhexe hadday noqoto shabeelooyinka hadday noqoto macnaha qofka meesha uu degan yahay cid ka soo raraysa ma jirto qof qasbaysa ma jirto ilaase meelaha ku habboon oo markaas aan isleenahay Gorgata Foundation anagoo isku duuban waxyaabo badan aad ka qaban kartiin oo ku soo celiya aad iyo aad xalimo kolley arrintaas waa arrin kolley laga tashan doono laakiin sideed u aragtaa in dadku ugu heelan yihiin in arrintaa la qabto oo ummadda wax dhinac kastaba mar walba loo diyaar garoobo waxyaabaha baahida bini'aadamku mar kastaba waa joogto ma aha qayb keliya qayb kasta soo dhawow waa mahadsantahay Axmed Huday iyo walaashii Kaafisa sida ay u maaragtay faahfaahisa arrintaas horta waa arrin loo baahan yahay oo haddii maanta macnaha ay maaragtay sidii aan rabno noogu hirgasho oo gogashaan ay dhammaato ma ahan inaan ku kala tegayno maaragtay ii sheeg hawshii aan leenahay Gorgata hawshii waa naga dhammaatay haddii aan isdhex galnay laakiin sida aad sheegteenba waxa loo baahan yahay dadka in la horumarin loo sameeyo in garab la siiyo maadaama waddankayga maanta dadku u badan yahay dad dan yar ah in arrintaas la sameeyo waan dhiiri gelinayaa dad badan oo aan horay uga maqlayna way jirtaa inaanan arrintaas ku kala harin isku dhaarsano dadkayga hadda maaragtay hormuudka u ah arrintaas inaan noqono dad xoogeeyo oo gaarsiiya ilaa heer dawli ah inaan gaarsiino in dadkaas wax loo qabto qof walba meesha uu maaragtay ka geli karo bulshada Soomaaliyeed oo uu wax ka keeni karo oo uu gaarsiin karo inay arrintaas gaarto dadkana aad iyo aad loogu gargaaro aad ay ugu baahan yihiin aad iyo aad awre nadiifo waa telefoon iga badiya aniga warka ay habar yar Axmed waa mahadsan tahay waa sida ay walaashay Kaafisa ka dhawaajisay iyadana waa sax in samafal la diyaariyo oo gargaarta ah samafalkaas oo walaalaheeni meel walba ay degan yihiin loogu hirgeliyo waxyaabihii bulshada ay u baahneed ama ha noqoto ceelal ama ha noqoto iskuulo ama ha noqoto meelo caafimaad waxyaabaha ay bulshada u baahan tahay because waxa waaye walaalaheen waxay u baahan yihiin maanta inaan hiil iyo hool la garab istaagno marka waa loo baahan yahay samafal gargaarta uu leeyahay oo wax loogu qabto walaalaheen ama gobol dhexe ha joogaano ama qaybaha kale ha joogaano ama ilaa banaadir ilaa
shabeellaha dhexe ilaa hiiraan ilaa iyo jubbaland ilaa koonfur galbeed meel walba ay walaaluhu ku nool yihiin in la gaarsiiyo waxqabad marka walaalka aad caawinaysa marka ugu horreysa waa in aad horta aad u muujiso bal waxyaabihii naga raagay oo aan shalay kala dib dhacnay ama aan dib u dhac aan uga samaynay in aan ku hormarino waa sidii laga dhawaajiyey samafalkaas waa loo baahan yahay axmedow aad ka dhawaajisay in la furo marka samafalkaas la suubiyo dib u dejin iyo wax walba waxaa la samayn karaa markaad samafal ku caawina aad haysato oo gargaarta loo bixiyo waa muhiim in arrintaas la sameeyo especially UK laga bilaabo marka UK aan ka bilowno in Mareykan ilaa Australia ilaa Yurubta kaleeto ay nagu daydaan Yurubna markii la soo qaato UK ayaa hormuud ah marka haddii UK laga asaaso waa Yurub oo isku duuban United isku wada noqonayaan marka waxaan rajaynayaa dib u dejintaas in sida ugu dhaqsaha badan axmedow aad ku dadaasho iyo gudoomiyahaba aad ka wada tashataan sidii loo samayn lahay ururkaas samafalka ah ee gargaartay waa muhiim waana mahadsan tahay aad u mahadsantihiin kolley hadda waxaan ku guda jirnaa hawshan muddo 5 bilooda meesha ugu dambayda waxay tahay sida aad u aragtaan inaan u soconno waxyaabaha noo qabsoomay ma is leedihiin waa gaabinay ma waa dheeraynay ma meel dhexaad ma meesha rabin noo joogtaa qiyaas kaafisa xawliya ku soconaa maasha allah wata weel uma baahna waaye run ahaantii I can't believe wallahi xawliya ku soconaa ilaaha nagu garab galay dad maasha allah firfircoon gudoomiye cabdiqaadir cali yarow kuwa dadka muqdisho joogo Saciid ugu horeeyo guddi badan waaye adigoo hadda magaaladan London maasha allah qayb weyn ka qaadatay gabdhaha Sweden joogo Xaliimo nagala joogto iyo ragga Mareykan dadka joogo oo ayagana maasha allah aad u fircoon hadda Canada dayaysaa caalamka oo dhan dhinacan waqooyiga Puntland oo kale gobolada dhexe oo kale horta maasha allah tabaarakallah sayruq camal u soconaa ilaahay ha noo sii ziyaadiyo insha allah gorgaatinimadu dhiman mayso cibriga dhammaan mayso dhaqankii cuqaasheena dhidigii laboodkeena yariyo waayeelba waxaan rabaa inaad soo diyaarisid ereyadaas aan kuu soo tuuro hadda adiga abwaana iga raali noqo abwaanka iga tahay ilaas stiil ereyadaas waxaan rabaa inaad dhammaystirtid gorgaatinimada dhiman mayso waayeelka iyo dhalinyarada iyo dhidil iyo laboodkeenaba macnaha inaan saan u istaagna aan u tii wadno insha allah run ahaantii aada u faraxsanahay qalbigayga macnaha ma qiyaasi karo run ahaantii ma qiyaasi karo ilaas xamdigaas ilaaha iskale iyo juhdiga badan axmedow adiga iyo ummad badan iyo gudoomiyaha iyo ma qiyaasi karo run ahaantii waxaan u tilmaamo run ahaantii aada u faraxsanahay wallahi heerka ay marayso iyo meesha ay gaartay insha allah biidnillaahi kariim ilaase waa sii dhammaystanaynaa insha allah nafti intaa qabno annagoo intaas oo milyan oo dad ee Soomaaliyeed aan ka dhex muuqanay oo aan heerkan gaarsinay ilaaha ku shukrino ku xamdinay ilaaha nagu xafido ilaaha nagu sii garab galo meel kastoo aan joogno soo dhiiba Xaliimo soo dhawow aniga waxaan rabi lahaa walaashay kaafiso aad iyo aad u mahadsantahay Axmed Hudey iyo walaashay Nadiifa Qaran kulligiin waa idin mahad celinayaa sida maaragtay faahfaahinta iyo maaragtay quruxda badan oo aad maaragtay arrinta u daadihinaysaan xalay haddii aan dib ugu noqdo dhacdada halkaas ka dhacday waxay ahayd markii Cabdulqaadir istaagay oo uu arrintii maaragtay ka hadlay gorgaarte iyo maaragtay xaaladda uu soo gudbiyay dadkaas gabdhihii meeshaas joogay sida ay u soo dhaweeyeen waxay ahayd si aan maaragtay runtii maskaxdayda ka go'aynin oo aad iyo aad maaragtay u qiiro leh gabdhahaas qaar ka mid ah runtii way ooyeen waxayna u ooyeen ma aynan filaynin arrinta meeshaas uu ka curiyey gudoomiyaha sidoo kale shirwac maadaama uu gogoldhiggii hore joogay mid arrintaana uu gudoomiyuhu uu meesha la yimid markiiba wuxuu meesha ka ballan qaaday inay arrintaas ay noqon doonto sidii loogu talagalay uu garab weynna maarta siin doono arrintaas waxa uu ka geli karaa asaga xagga odaytinimo iyo nabadeynta xaggeeda maadaama uu yahay nin nabadoon ah oo maanta usoo baxay dadka uu ka dhashay iyo dadka Soomaaliyeedba
waayahay habar nadiifo soo dhawow adigana maaragtay kelbadaada sida aad u aragto marayno xawaaraha ma gaabinaa ma meel dhaxa maraynaa ma waqt meeshii la rabaan ku nimid soo dhawow ما شاء الله والله هبرير آدي آد جابس إسكداية حدقها لقاري حدقها طلبتها dadku waxay maqli jireen awal ka hore filcis gorgaartay wadalaan gorgaartay waxa la maqli jiray hiraab ya lama maqli jirin gorgaartay wuxuu ahaa waxa ka horeyn jiray anigu hiraabaan nahay anigu abgaalaan nahay anigu habar gidiraan nahay anagu ujeejeenaan nahay anagu waxaan nahay duduble shiiqaalaan nahay ayaa la maqli jiray maanta waxaa imaaday magac weyn oo maanta cirka gala hal mar muxuu cirka u galay magacaas gorgaartay maadaama lixda hawiye ee liibaantay ay ahaayeen karanle iyo gugundhabe iyo gorgaarte iyo xaskul iyo jambeelle micnihii lixdii hawiye liibaantay magaca mar walba waxaa la sheegaa jufada ku dhex jirta bis alayaa la sheegi jiray hadda anaga karanlaan nahay for example murusade ilaa karanlihii kale etoobiya degaa gorgaarte waxaa la sheegi jira un habar gidar iyo abgaal iyo duduble iyo shiiqaal iyo ujeejeen maanta waxa ilaahay mahadiisa gorgaarte in meel walba gorgaarte qof walba loo micnaynayo qof walba uu barta maanta magacii la weyneeyey laakiin awal annaga ay micnihii naga dahsooneen waxaana mahaddaas iska leh gabadhii inta soo fariisatay meediyaha walaasheen xamdi kalgacal ama boqoradda gorgaarta hawiye soo fariisatay meediyaha tiri anigu waxaan ahay gabar madhibaan ah gabar maxamed gargaarta gabar gorgaarta hawiya curda gorgaarta hawiya marka waa ilaahay mahadiis magacii maalinba maalinta ka dambaysa dayax ayuu sii galay irkuu bishareeray marka lama gaabine waa la dheereeyey waxaana loo dheereeyey maadaama 5 bilood gudahood ay maanta ay u dhiganto in ay marayso 5 sano howl aan soo wadna camal 5 bilood waxay maraysaa 5 sano wax la soo wada camal waa ilaahay mahadiis maantana weliba gogasha weyn ee muqdisho la dhigi doono oo beelweynta hawiye ay dhigayso ay Soomaali u dhigayso marka la isugu wada yimaado maxad ku riyoon lahayd quruxdaas ummadda Soomaaliyeed iyo maxamed gargaarta madhibaan inta loo fadhiya oo loo wada hoyanayo oo hadda ma sha Allah ilaahay nafa nagu gaarsiiyo marka gargaarta waa duulay cirku galay ma sha Allah habar yar meesha ugu sareysa Axmedow aad iyo aad ayay ilaahay mahadiis u tahay aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaa dhammaan guddigii isku howlay in midnimada gargaarta hawiye ay qabsoonto aad iyo aad wadan walba ay joogaan annaga reer UK wadan walba wuxuu leeyahay annaga best ah annaga ku ugu fiican ah laakiin waxa goolka loo haya Soomaaliya ama Mareykan ha noqoto ama Yurub kale ha noqoto ama Carabaha ama meel walba wax ka dhacayaan annaga UK waxaan aaminsanahay inaan nahay ku ugu sareeyay xaliimo kale wareer Sweden waxay aaminsantahay reer Sweden waa soo bilaabeen maadaama ay soo bilaabeen ayaga best aan leeyahay anigu annaga number 1 ee sababta gurgaati dadka boorka ka jafay UK waa nadiif you know waa ogtaa Axmed Cali Hude ha noqdo aniga aan noqdo dadka boorka ka jafay ee ummadda sanka ka giliyay ee u sheegay gurgaati wuxuu yahay waa reer UK runtii no aawada ku dagaalamina waa lagu filan yahay gurgaati badan yahay marka waxba ku dagaalamay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan horta maanta dhan axmedaa qabtay anigu waxba ma qaban lugaha iyo gacmaha iyo baalasha aan ku duulaya gabdhahay ahaayeen haddaan gabdhuhu jirin wax qabsoomi lahay male aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan u mahad celinayaa dadkana daawanaya oo iyaguna commentigooda halkan ka bixinaya iyaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin barnaamijkeenni caawa marka halkaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya xaliimo jaamac kaafisa ibakar iyo nadiifa qaran barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Cali Hude waxaana nagala socoteen Gorgaata TV intaan barnaamijka mid lamida dib ugu kulmi doono waa anigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi